Warbixintan waxaan ku eegaynaa taariikh kooban oo ku saabsan taliyaha qaybta guud booliska gobolka Banaadir, Jenaraal Saadax Cumar Xasan. Jenaraal Saadax Cumar Xasan, oo Soomaalida intooda badan u yaqaaniin Saadax John, waa sargaal firfircoon oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Dhinaca kale, waa taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Saadax waxaa ku socda eed qareenkiisu uu sheegay inay sal iyo raad lahayn, isla markaana lasoo dhoodhoobay. Saadax oo ah jenaraal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, shaqo hufanna ka qabtay gobolka Banaadir, ayaa eedda ku socota waxaa lagu sifeeyay inay tahay mid lagu sumcad dilayo shakhsiyadiisa iyada oo la rabo in lagu curyaamiyo shaqada adag ee qaranka Soomaaliyeed uu hayo xilligan. Howlaha wanaagsan ee Saadax uu ka qabtay gobolka Banaadir waxaa ka mid ah in uu ka hortagay isaga iyo ciidanka uu maamulo ka daba tagna uu ku sameeyay falal ammaan darro oo la doonayay in laga fuliyo magaalada Muqdisho ama la damacsanaa in lagu waxyeeleeyo shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. Sida uu Saadax u noqday taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, waxaa hoos u dhacay ama yaraaday qaraxyadii isdaba joogga uga dhici jiray magaalada Muqdisho oo ay soo abaabuli jireen kooxaha argagixisada ah ee naflacaaliga ah iyo dilalka qorsheysan oo kooxaha argagixisada ka tirsan ay shacabka Soomaaliyeed waa soo noqonaynaa oo waa imaanaynaa oo waxbarashada booliska waa loo baahan yahay in mar walba la soo celiyo ciidanka oo koorso loo xiro. Laakiin waxaa la rabaa qoladii koorso loo soo xareeyo inay ka faa'iideystaan oo ay gaarsiiyaan ciidanka kale oo hadda ay u tegi doonaan maadaama ayagu ay fresh yihiin ay duruus soo qaateen. Jenaraal Saadax Cumar Xasan waxaa sidoo kale uu ahaa aas-aasihii nabad sugidda Galmudug oo hadda gacanta ku haysa nabadgelyada lagu faanayo ee ka jirta inta badan deegaanada Galmudug. Jenaraal Saadax Cumar Xasan, intii uu ahaa taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir, waxa uu ku guuleystay in uu gacanta ku soo dhigo rag ka tirsanaa argagixisada Al-Shabaab oo ku dhumaalaysanayay gudaha magaalada Muqdisho iyo daafaheeda. Waxaa sidoo kale Jenaraal Saadax Cumar Xasan inta haatan uu hayay xilka taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, dib u qaabeyn lagu sameeyay qeybaha hoos yimaada qaybta guud ee gobolka Banaadir iyo saldhigyada markaasi degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir, kuwaas oo haatan ay ka howlgalaan dhalinyaro, saraakiil, jaamiciin ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan, kuwaasi oo markaasi aqoontoodu haatan ay tahay mid aad u heer sareysa. Sidoo kale, amniga guud ee magaalada Muqdisho ayaa wax badan laga bedelay, iyadoona la adkeeyay gaadiidkii iska soo geli jiray magaalada Muqdisho, kuwaasi oo haatan ah kuwo markaasi la xaqiijiyo isla markaana baaritaano dheeraada lagu sameeyo. Waxaa sidoo kale socda howlgallo ciidamada booliska ay ka sameynayaan daafaha iyo gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo markaa laga hortegayo khatar kasta oo ay soo maleegi karaan kooxaha argagixisada ah ee amniga doonaya inay qalqal geliyaan. In Saadax uu yahay sargaal muhiim ah oo shaqadiisa lagu kalsoon yahay